قوتش قبل الله فيه معي horta taariikh baan leeyahay iyo qalasad baan ahay qalasadnimadii iyo taariikhdii aan lahaan lahay ee qamrigii baa ku dibdhigaya waxaan hay dhilo fahima soo dhawow aniga warkaygu waa cad yahay fahima soo dhawow soo baxay argada shahaadada kaalayay waa gacantii oo ku soo dhaweynaysa waan hay soo dhawow fahimay ayaan ku leenahay gabadhan oo reer buuhoodla sidoo kalena ay qaraabo dhow yihiin taliya Cabdi Madoobe ayaa banaanka keenaysa sir culus oo yaab leh oo ku saabsan Fahimo Quuce xilli la shaaciyay in Fahimo Quuce looga yeeray magaalada Hargeysa iyadoo maalmihii dambe si cad u sheegtay inay doonayso inay ku biidho Somaliland sidoo kalena waxa la arkayay nin ka tirsan dadka Somaliland ama beesha Isaaq oo gacan go'an kaas oo gacanta murduxan leh Fahimo soo dhawow isagoo markaasina diyaariyay goob qasri ah oo loo diyaariyay Fahimo Quuce halkaas oo la cadeeyay inay tahay halka ay ka degi doonto magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland hadaba maxaa ku dhacay Fahimo Quuce isla barnaamijkan ayay ku shaacin doontaa haweeneydan oo reer buuhoodla oo si dhow ay isku yaqaanaan Fahimo Quuce iyadoo oo banaanka keenaysa xog ka yaabin doonta hadaba waxba yaana war idin ku daalana dhamaantii si degan u daawada muuqaalkan siina share gareeya muuqaalkan la gareeya Darwish TV subscribe saarta gambaleelkana furta kuma hasanadeen waxaan hay dhilo fahima soo dhawow aniga warkaygu waa cad yahay fahima soo dhawow soo baxay argada shahaadada kaalayay waa gacantii oo ku soo dhaweynaysa waan hay soo dhawow fahimay ayaan ku leenahay قوتش قبل الله فيه معي horta taariikh baan leeyahay iyo qalasad baan ahay qalasadnimadii iyo taariikhdii aan lahaan lahay ee qamrigii baa ku dibdhigaya waxa weeye markaad qamriga cabtid oo 10 kiilo qaad cuntid tolka buushtiinku ku tusaya Soomaalian garan waxa weeye reer hagarkan aad leedahay reer hawd anigu naaf jaamac siyaabaan ahay qabiil sabnaa baa laga yahay Soomaalian garan sabnaa siyaad maxamuud jaamac siyaad reer warsamaatiri fiiri anigu oo malayn maayo gabariga laandeeraysan oo dhul baan ka inay jidho Soomaalian garan qalasmaan in adeertiisa aanay gabar reer hagaro cigaal faaraxba haday ka sii tagtana Axmed Garaado aadan Axmeda mana ku faano miiriyana waligay lama soo fariisan Soomaalian garan in adeer abtooyay waxaan ku sheegaya nin walba oo meel taagan oo qalasa garabiya in adeer buulay kaslaay anigu siyaad maxamuud ku caayimaayo maxamuud garaadna ku caayimaayo garaadada yana sabna ina garaad Ismaaciil cadowgiisa jabo garaadada yada kale cadowgood ha jabo ina garaad cali gar cadowgiisa jabo inta waa garaadada yadii harti guul daarood guul adigu se waxaana loo sheegay yaa horgaladina aad ahaan jiday aabaha aan horgal yahay habeenkii markaad murqaantid oo qamriga yaqaadka ku murqaantid baa isaaqu telefoon ku soo diraan ilaa baafkii baa tahay baafkii isaaqay waxaan ku sheegayaa dadka ha kala dilin laascaanood ee riboorkeeda haddii ina garaad Ismaaciil oo qoro garaadka loo dhulbaanta haddii lagu qono garaadkayagi kaslaay daarood iyo harti iyo maxamuud Saleebaan ha isku soofay shalay bay ahayd markaad Cumar Maxamuud caayaysay oo ay gabarnimo kaaga tageen Soomaalian garan mukhbaaradaha meel walba waa tagtaa gabar lagu soo diro ku caydana laguma waayin yaa horta waxaan u malaynayaa ma haba waxay tahay agtii joogsan wayda mar bay ceeb la kumantaa gacan baad ku baxaysaa gacan daarood baad ku baxaysaa dad garaw inta wiil yar gadaashaada maraad miiriyaha la soo fariisto waxa weeye anoo garaw hotel casho ka gadanaya baan baskoolad la soo baxay baaqaday baskooladna lama soo bixi kartid halyeeyada dhulbaanti ama halyeeyada harti yaa baasaa kuugu tiirsan Soomaalian garan adoo kalena yaa inaan qabiilo caayo raali kameehi maanta lama halka waxaan soo fariistay jawaab talabaad mid baan ku sheegaya afka aad ku caayaysid garaadada oo la moodo yaa ku go'ay yaa ana ka naxayo lacagta ku soo diray waxa tagtaa meesha ilkaha ay lagu buufiyo afkana yaa habeenkii markaad qayshid yaa ila reer baadiya to qarcado ka soo baxad qaad doortay la siidkaad gadaysay yaa naagu iyo wada qaylabay afkoodu markay hadlayaan loo boga adiguna afkaaga yaa qof wala markay hadlaysa indhuhu saarsadaan madaxa Soomaalian garan dadka kala gurin kaslaay laba shaati leeyay
waxaan mayrmayn waa adiga aabaha waa lagu ogyahay dhulbaantii artiya jaamac siyaad waxa weeye dhulbahante markaan in cambaashacaayo way qoslaan markay hebel maxaa lagaaga qoslayaa naayaa reer hawd waxbaa ka sheegay reer hawd garabkoodii baad ku jiiftaa reer hagar yaa iyo reer kala dhawaadan axmed yaa waa la yaabay hubkii maalintii laascaanood ay keeneen Soomaaliya garan Umar Maxamuudna waad ku jisaartay xilkii ugu horeeyay reerkeena oo isa soo banaandhiga yaa iyaga warsangali bay ahaayeen Soomaaliya garan Siciidani oo madaxweynihii hartiya yaa baa markuu kula kalaami waayay yaa baa ina diyaana markuu intuu ku koro qamriga ku siiyo ku dhoocay kaslay laba nin oo Maxamuud Yuusuf weeye Soomaaliya garan laba nin oo Maxamuud Yuusuf weeye haddana Siyaad Maxamuud reer kala dhaw waxaan u sheegayaa Siyaad Maxamuud anigu ma kala guraya reer kala dhaw waxaan u sheegayaa fihima qooja naagta la dhaw gacan bay ku baxaysaa gacantay ku baxaysana yaa dadka ay la meeraysada kula wareegayso yaa hadda waxaan loo sheegay oo maanta aanu aragnay qalaska iyaga maan inay afka la gashay ma waa wiil reer hagara waana wiil reer faarax hagara waana wiil cigaal faaraxa Soomaaliya garan 15 jir afrada yaa baa reer hagar siiyay oo aan 15kii u buuxsamin adoo baafa oo ilaa isaaq cid waliba yaa faylku saari taqbul faylka laga saari jiray ay dhislayay maan ku fuuli mayo qalaska iyaga haddaad nacabto reer abtiga ku soo dirsadeen nacabta hoosteed haddaad joogsan weydana dartaad joogtid baa lagu imaanaya haddaba Fahimo Quuje oo halganka deegaanada SSC ku suntanayd ayaa mar dambe jaraha ka dhacday kadib markii ay ku dhexmilantay siyaasadaha Puntland gaar ahaan xisbigii General Maxamuud Cismaan Diyaano iyadoo oo la arkayay in markaasi ay qayb lixaad leh ka soo qaadatay halgankii deegaanada SSC balse mar qura ay isbedeshay Fahimo Quuje haddaba dadka faraha badan ayaa sheegaya in Fahimo Quuje ay wax u dhimeen diryankii madaafiicii Somaliland kuwaas oo la sheegay in gabadhan ay u baahan tahay nasiino iyadoo oo markaasina telefoon ay la soo baxayso oo markaasi ay si toos ah qof walba u caayayso markay ugu darneed waxay ahayd markii ay cayday Garaad Jaamac Garaad Cali iyadoo oo sheegtay inuu la mid yahay naag masayirsan oo kale taas oo ku sii dirtay ama baasiin ku sii shubtay in meelo kale looga gacan haatinayo ugu dambeyn Fahimo Quuje ayaa waxay si toos ah ugu biirnay beesha Isaaq oo sidoo kalena horay u qabi jirtay taas oo la yaab ku noqotay cid walba in gabadhii halgankan ka soo qayb qaadatay xilligan ay ku wajahan tahay magaalada Hargeysa iyadoo halkaasina loogu diyaariyay markaasi rag khaas ah oo ilaalo u noqon doona halka kuwa kalena markaasi la shaaciyay inay geyn doonaan ama ay waardiyeyn doonaan qasriga ay Fahimo Quuje ka degi doonto magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Somaliland haddaba qaybta hoos aragtidaada nugula wadaag maxaa ku dhacay Fahimo Quuje